Assalaamu calaykum waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan saameenta dhaqaale ee dagaalka iiraan iyo mareykanka dagaalka ka soo cusboonaaday bariga dhexe ee ka dhaxaloosan wadamada iiraan iyo mareykanka ka oo yimid kadib markii mareykanka duqeyn ku dilay sarkaal sare oo iiraan ah ka oo hogaaminaya ciidamada gacanka iiraan gaar ahaan kuudada qudus ee ku sugan dalka ciraaq arrinta ayaa kasii dartay kadib markii saacadihii hore subaxnimadii saaka ay iiraan weerar kandaal ah ku qaatay saldhigii ciidan ee mareykanka uu ku leeyahay ciraaq iyadoona iiraan ay sheegtay in weerarka ay ku dishay 80 askari oo mareykan ah sidoo kale waxay ku hajamtay haddii mareykanku isku dayo argoosi inay duqeyn doonto magaalooyinka Dubai iyo Xayfa oo Suuriya ka tirsan kuwa oo mareykanku saldhigii ku leeyahay weerarkan ayaa yimid saacado kadib aaskii Qaasim Suleymaani oo ay diyaaradaha darooniska ee mareykanka duqeyn ku dileen jimcihii meel u dhow madaarka diyaaradaha ee Baghdad kadib weeraradii ugu dambeeyay maarayaha duulista hawada ee mareykanka ayaa ka mamnuucay shirkadaha mareykanka inay duulimaad ka sameeyaan hawada Ciraaq Iiraan iyo wadamada deriska la leh xayiraada ayaa waxaa kamid ah gacanka Cumaan iyo biyaha u dhaxeeya Iiraan iyo Sacuudiga maamulka duulista hawada ee federaalka ayaa sheegay in go'aanka uu ahaa mid looga jawaabayo howlgallada militari ee la kordhiyay iyo kororka xiisadda siyaasadeed ee gobolka hay-adda ayaa horay uga mamnuucday shirkadaha duulimaadyada ee mareykanka inay ku duulaan jawi ka hooseeya 26,000 oo fiid una dhiganta 7,925 mitir ee hawada sare Ciraaq iyo in ay dul maraan aagga hawada sare ee Iiraan oo ka sarreeya gacanka Cumaan tan iyo markii Iiraan ay soo riday diyaarad daroonis ah oo mareykanku lahaa bishii Juun 2019 weerarkani waxaa ka dhashay saameyn kala duwan waxaana ugu xoog badan midda dhaqaalaha saameenta dhaqaale ee ka dhalatay weerarkan iyo xiisadda ka soo cusboonaada bariga dhexe waxaana ugu weyn inuu kordhay qiimaha shidaalka ee caalamka sidee BBC-du qortay waxaa kordhay qiimaha shidaalka ee caalamka kadib labadii weerar ee Iiraan ku qaaday saldhigyada mareykanka Ciraaq qiimaha shidaalka ayaa kordhay 1.4% taas oo ka dhigtay qiimaha shidaalka ciiriin lacag dhan 69.21 senti fuustadii sidoo kale waxaa qiimo koror ku yimid qiimaha dahabka ee suuqyada ganacsi ee bariga dhexe dilkii Qaasim Suleymaani waxa uu dab ku sii shiday khilaafkii u dhaxeeyay wadamada mareykanka iyo Iiraan arrinta ayaana keeni karta walaac ku aadan inuu qalqalgalo maraakiibta adeegsata marinka Hormuz maadaama Iiraan wax yar u jirto marinka Hormuz wuxuu muhiim u yahay dhoofinta shidaalka ugu badan ee gobolka Khaliijka sida Sacuudiga Carabiya Ciraaq imaaraatka iyo Kuwait oo dhaqaalahoodu ku tiirsan soo saarka shidaalka iyo gaaska Iiraan waxay sidoo kale ku tiirsan tahay marinka aadka muhiimka ugu ah dhoofinta shidaalka hadaraya ah wadanka ugu badan ee dhoofiya gaaska dabiiciga iyadoona sii marsiisa marinka aadka muhiimka ugu ah dhoofinta shidaalka qiyaastii 5% maraakiibta caalamka ayaa isticmaala marinka isku xira gacanka iyo badda carabta qiimaha shidaalka mar walba waxa uu ku xiran yahay xaaladda bariga dhexe sida ay tahay maadaama wadamada Khaliijka hodan ku yihiin soo saarista shidaalka waxayna soo saaraan shidaalka ugu badan ee caalamka 1973 oo ah xilligii uu socday dagaalka Israa'iil iyo Masar iyo Suuriya ayaa wadamada carabta ee soo saara shidaalka waxay kordhiyeen qiimaha shidaalka taa oo saameyn weyn ku yeelatay caalamka gaar ahaan wadamada mareykanka iyo Yurub oo aad u adeegsada shidaalka ay soo saaraan wadamada carabta xiisadan ayaa weli xoog badan ku abuurtay wadamada Sacuudiga iyo imaaraatka xulufada wadanka mareykanka Iiraan ayaa ku hajabtay inay weerari doonto wadanka imaaraatka gaar ahaan magaalada Dubai hadii weerar uu mareykanka ka soo qaado saldhigga uu ku leeyahay wadanka imaaraatka waxa ay taageertay Iiraan ayaa waxa ay ku sugan yihiin Yemen iyo Suuriya oo xuduud la leh Sacuudiga taas oo weli xoog badan ku abuuri karta hadii uu gobolka ka dhaco dagaal in Sacuudigana uu wax ka soo gaari karaan